dadku waxay isweydiinayaan Christmas-ka in la xafladeeyo ma bannaanta in la tahniidiyo ma bannaanta in laga qayb qaataa ma bannaan tahay in la dhigtaa ma bannaan tahay intaynan ma bannaanta iyo ma bannaana ka warramin aan isweydiinay muxuu Christmas-ku yahay Christmas Christ waa mukhallis nabi ciise uga jeeda waa savior masna oo maqtaca labaada iyana macnaheedu waa miilaad Christmas waa miilaad almasiix aw miilaad almukhallas mukhallaskii goortuu dhintay goortuu dhashay ciidaha nimanka kristanka ahi ama masiixiyiinta ahi say buugagtooda ku qoraan 140 ciidood bay ka badan yihiin 140 maalmood oo celebrations la sameeyo 14 baa waaweyn 14 ka 7 ugu sii waaweyn 7da waaweyn maxaa ka mid ah markaa labadan had iyo goor dadku ka hadlaan ee ah Christmas-ka iyo Easter-ka mid waxay leeyihiin waa maalintuu ciise dhashay midna iyagu siday qabaan waa maalintii la dilay su'aasha isweydiinta leh waxay tahay markaa ma la garanayaa horta maalintuu ciise dhashay ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso maalin la garanaya ma tahay Bible-ku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin ciise qoliyaha qaarkood baa waxay yidhaahdaan ciise wuxuu dhashay sida luuq ku qoran ciise wuxuu dhashay maalin yacni wakhti ay qoladii adhiga raacday habeenkii markay adhiga soo xareeyeen ay warka maqleen waxaa macruufa bay yidhaahdaan falastiin winterka inaan habeenkii adhiga dabadda lagu haynin winterku waa wakhti dhaxaneed marka wakhtigaasi winter ma noqon kara bay u deliishadaan waa halka sheekha diidaatana uu isna ka deliishado timirtii maryan la yidhi ruux timirtu goormay bislaataa waxaa la yaqaanaa inay samarka bislaato xagaaga kulaylka ku bislaataa maadaama timir la yidhi geedkaa timirtaa rutab uu ka soo daadanayo winterka rutab ma jiro haddii la yidhahdo December rutab ma jiro haddaba xagguu ka yimi qoraayadii hore ee qarnigii 2 iyo 3 ee wakhtigaa ciise loo nisbaynayo dhalashadiisa ka dambeeyey haba yaraatee wax dhalashada ciise la yidhaahdo kama hadin marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixion-ka ayay ka warantaa laakiin kama waranta dhalashada in badan Alexandria origin of Alexandria nin la odhan jiray oo noolaa qarnigii 2-3 ayaa wuxuu ku sheegayay celebrationska birthday-ga la yidhaahda inuu yahay pagan in loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wathaniyiinta iyo baaganimada buu leeyahay waa nin masiixi ah oo qarnigii 2 ama 3 nool wuxuu leeyahay dabaaldega la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yidhaahdo waa paganiska dhaqankoodii buu leeyahay taa macnaheedu waxa weeyaan wakhtigaa meeshaa ninkaasi joogay inaan Christmas iyo wax loo dabaaldegiyo waxaasi toona ka jirin sida la og yahay qarnigii 2 ee kristanadii noolaa may dabaaldegi jirin ولذلك baa nin qoraaya oo Clement of Alexandria wadaad la yidhaahdo wadaadadooda ka midi ayaa wuxuu leeyahay ciise dhalashadiisa tawaa'ifta kooxaha kristanka kala nooca ahi waxay soo propose gareeyeen waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gedisan waxyaabaha cajabta lena waxaa ka mid ah maalmaha 25 December marnaba kuma jirtaba waa maalmo kale maalmo ay kristanku isku haystaan goormuu dhashay Clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamayaa qola waxay yidhaahdeen sanadkii 28 ee Augustus bishii Bakhal la yidhaahdo 25 oo dhiganta May 20 buu dhashay bay leeyihiin
sanadkana 28 bay ka dhigeen Augustus waqtigiisii qolo kale waxay dhahdeen 28 kaba ma ahayne iyo waqtiga Augustus toone waa 16kii Tiberius waqtiga la yiraahdo ninka la yiraahdo waqtigiisii waxaana yiraahdeen wuxuu Ciise dhashay 22kii Abriil qolo kale waxay yiraahdeen wuxuu dhashay 15kii Abriil qolo kale waxay yiraahdeen wuxuu dhashay 20kii Abriil idan waqtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abriil iyo May iyo March wax December iyo meesha tani kuma jiraan waxay isku hayaan nabi Ciise ma March buu dhashay mise Abriil buu dhashay mise May buu dhashay taariikha kala gedisan bay tilmaamayaan qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25 December iyo 6 June ee 6 January la sheego kiniisada kristanku qarna 25 kay u dabaaldegaan Orthodox waa Catholic iyo wixii raacsiisana ka dambeeya Orthodox-kuna waxay u dabaaldegaan 6 January sidaradeed kiniisada barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisada galbeedkuna 25 kay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay يوم التعميد maalinta ay aadka weynayeen ay leeyihiin Ciise biyaha la galiyo laga soo saaray oo tacmiidka loo sameeyay ba ku beegantay marka 25 December laga soo bilaabo ilaa 6 January 12 maalmood ba qaar baa dabaaldega wada sidee ku timi marka haddii aynu leenahay taariikhdii hore lagu bahayo maalintu dhashay qoraayadii hore kuway qoreen waxay sheegayaan inay ama Abriil ahayd ama May ahayd ama March ahayd xagee ka timi hadda December tan iyo January tani laba theory baa jira way qoraan labada theory mid baa aad u caansan ka aadka u caansan wuxuu sheegayaa 25 December diilnaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beerta god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegayay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtigii qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin oo hadda maalin gaaleed bay ahayde wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagay celebrationska birthday-ga oo dhane maxay kuwan dambe u aqbaleen waxay yiraahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay yiraahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluno nidhaahno waa maalintii Ciise dhashay oo shaqo kristan aan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen أن كبدل عبادات مسيحية بيناده قرض كلنا وحي لايهين ما بشمي أما مارش أما مالمهنا نشيجينا مثلا شريعة لباتن كمارش وحكوب بيجي بيلايين مالنتي يوم التبشير كمالنتي هذا يوم عيد البشارة مالنتي جبريل ومريم وجب بشاريي إن الملصين أيه waxay yiraahdaan maalinta ilaa iyo December marka la xisaabiyo waxa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu maanu qiimeynay maalintii Jibriil uu yimi baa inta ahayd hadduu birthday-gi hadduu si caadi ah u dhashay inuu December dhalan karo theory-ga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka ma aha 6 ay isku hayaan 25 January ma 5 December ba mise 6 January na waxay u dhaxaysaa maalmaha ay ku muransan yihiin oo ah 6 April buu dhashay mise 25 March buu dhashay isla markaana crucifixion-ka iyo Ciid al-Bishaaru annunciation-ku waa isku waqti ayay iyagu qabaan maalintii loo bishaareeyay isla maalintaas la dilay isla maalintaas uu urgalay
dabeetana wakhtigaa ka muu dhashay soo duuduub waxaan leenahay ciise gooruu dhashay cidi garan mayso oo haddaan gooruu dhashayba cidi garanayn maxaa loo dabaaldegaya waxyaabaha cajabta ah waxaa ka mid ah ee ciise ku saabsan qarnigii sagaalaad khilaal alqarni taasic cashar aan idhaahno waxaa bilaabmay brotestanka qaybo ka mid oo leh waa bidco kaatoligu samaystay sidaa daraaddeed iyo in maalintaa la dabaaldegi kiniisadda kaatoligaa baa radiday oo sii tiro badisay dagaaladii ingiriiska dhex marayay wakhtigii ay jireen waxaa la mamnuucay in la dabaaldego maalintaasi scotland 1640kii sidii loo mamnuucay 1958kii dhowaa baa la soo celiyey in December 25 dib loo dabaaldegi karo waddanka Maraykan mustawtanaadka protestantiska radicalka haysan jireen 1659 iyo 1681 sida Boston iyo wixii la mid ah mamnuuc bay ahayd in 25 December la dabaaldego waxaanay u arkayeen inay tahay caado ingiriis oo foolxun taariikhda markaynu dib ugu noqonno markaas masiixiyiintii noolaa wakhtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxaa cajiiba markaa maharajaan kaatoligu ay sameeyaane waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan inaanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xaggay ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanska ka horraysay tan December maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen wakhtigaas ay wax bixin jireen kiniisadda kaatoliga waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen wakhtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo bari dambe alquruun alwasطaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxa kaloo jira wadaad Kristino Armenian oo Nicola la odhan jiray Nicola ayaa barigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir oo Maraykani gabiyay dabeetana isaga gabayga ku sameeyay ninkan maryaa cascasita ee gadhka cad leh ee maryaa cad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yiraahdaa deeradu ay jiidaysay caruurta intuu wax u qaybiyo habeenkii meesha ka soo rida gabiyaha Maraykan baa waadanba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu samaynayo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diin laawayaasha hore ay samayn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo Christmasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mid ay leeyihiin waa ciid wathaniya ciid xataa ciise dhashay maaha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahy waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu i caayaa waanu i beeniyaa
ويعايا وحليه إن بودلي أنا جو أهب إلهي لي الله الأحد الصمد وحنا دالين لينا دالين وإبانية وحليه يسوع علين مايو